kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba saaxiibayaal daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa Somali American Network studios ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka barnaamijkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Awil Nuur Shire barnaamijka maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa qodob ku saabsan sida aan wada ognahay baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa dhawaan waxa uu u fariistay aqoonsiga Somaliland haddaba wixii ka soo baxay iyo sidii loo arkay booqashadii madaxweyne biixi uu ku tagay dalka Ethiopia iyo dadka Soomaaliyeed iyaguna siday u arkeen dadka reer Somaliland siday bay u arkaan midowga waxaan qodobadaas oo dhan ka wareystay wakiilka jaaliyadda Somaliland ee dalka Mareykanka mudane Maxamuud Axmed Jaamac oo loo yaqaano Gabyaaye oo intiina badan aad ku aragtaan warbaahinta Soomaalida Gabyaaye inkastoo uu yahay nin reer Somaliland haddana dadka Soomaaliyeed aad buu ugu dhex jiraa dad badanna waa ay garanayaan bal Gabyaaye ku soo dhaw maanta Somali American Network aad baan kaaga mahad celinayaa Awil sida qiimaha la adiga soo casuntay Somali Network Somali American Network Somali American Network waxaad warbixin naga siisaa baarlamaanka Ingiriiska ayaa fariistay waxa laga wada hadlay aqoonsigii Somaliland inta badan dadku de warbaahinta ay kala socdeen wixii ka soo baxay laakiin wixii ka soo baxay dadka reer Somaliland sidee bay u arkeen maxay ka yiraahdeen sidii ay wax u dhaceen ma sha Allah wata Awilow waxaynu ognahay laga bilaabo 1991 in reer Somaliland ay u qalab qaateen sidii dallis iyo aqoonsi labadaba ay ugu raadin lahaayeen Somaliland taasi oo wajiyo badan lahayd dibudhiski iyo qurbajoogii oo iyaguna dabada ka riixaya sidii international community ay Somaliland uga dhigi lahaayeen dal ka mid ah dalka adduunka la aqoonsaya nasiib wanaag bila Ingiriisku inuu maanta ka hadlo waxa ka horeeyay xilligii Riyaal oo iyaguna waxa jira parliamentarian fara badan oo laga soo doorto dalweynaha Ingiriiska inay lagu yeero saaxiibada reer Somaliland ee baarlamaanka fadhiya alwaysna u dooda Somaliland iyo xuquuqdeeda iyo organization-ka iyagoo dib u celiya saacada 60kii ka hor in Somaliland waxa dalkii ugu horeeyay ee la aqoonsaday labadii Soomaaliya ee midoobay markii dambe alxamdulillah wasiirkii difaaca Ingiriiska Kevin oo ugu horeeyay oo xilligii wasiirka ahaa tagay Somaliland wuxuu aad u soo jeclaystay dadkan halgamaya sidii noloshooda ay dib u dhisi lahaayeen taas oo adduunyadu ay wax badan qarinaysay ayuu banaanka soo dhigay baarlamaanka waa la yimi discussion buu ahaa taasi oo lagu wareysanayay wasiirro ka mid ah wasiiradooda oo ahayd in Somaliland ay xaq u leeyihiin maadaama ay dimuqraadiyadii iyo doorashadii one man vote oo waliba tii ugu dambeysay ee isku sidkanayn tabinaynay labadeenaba aynu ka hadlaynay ay soo jiidatay caalamka one man vote oo lagu kala badiyay mucaaradkiina qabsaday dalkii caam ahaan golihii baarlamaanka iyo deegaankiiba dadku markii hore sida loo buunbuuniyay waxay ahayd in la yiri Somaliland ba maanta waxa aqoonsanaya Ingiriiska si aynu wax u cadeyno arintu ma waxay ahayd discussion ama go'aan looga wada hadlayo sidii aqoonsi loogu raadin lahaa Somaliland mase arintu maalinta waxa loogu balansanaa in Somaliland dawladda Ingiriiska ah baarlamaankeedu uu go'aan soo saaro oo ku aqoonsanayo Ingiriiska markii horeba bal arintu siday ahayd warbixin naga sii horta sidaad u arkaysay uga daawanayno TV-yada muuqaal tabiyaha sida ay u soo tabinayeen meesha waxa fadhiyay xildhibaano kooban oo ah kuwa mooshinka dabada ka riixay eeg mooshin waa in la soo dhigaa ay ku salaysan aqoonsiga Somaliland taasi ayay horkacayeen doodooday soo bandhigayeen iyagoo xildhibaanada kalena u gacan tugaaleynaya ama macni u sheegaya ujeedada ay wadeen
in Somaliland maanta arrinkeeda meel lagu tiiriyo hadday noqon lahay dhaqaale iyo waxtar nooc walay tahayba iyagoo badkana soo dhigay wixii u qabsoomay Somaliland maxaa lagu aqoonsanayaa Somaliland waa inay iscadaysaa wixii lagu aqoonsan lahaa taas ayay ummadda u sheegeen istib wanaagsan bahay waxaad ogaataa wax badan discussion fara badan inuu ka dambeyn doono ay ku soo noqon doonaan floorka iyadoo Somaliland laga hadlayo talaabo wanaagsan oo xagga aqoonsiga loo qaaday buu ahaa si kala taynoo dhigo waaya dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida ah oo idinkuna ka mid tihiin oo de marka loo kala saaro dawladda Soomaaliya Somaliland dadka Soomaaliyeed waxay rabaan midow inaad midaysan tihiin oo ay Somaliland la joogto Somaliland waxay rabtaa inay go'do sax arinta aragtida dadka reer Somaliland midowga dad badan baa waxa leeyahay waxay qabaan midowga inuu ka wanaagsan yahay inay goon isu taagto Somaliland waliba qaar badan reer Somaliland ay qabaan adiga ka Maxamuud ahaan maxay kula tahay horta awlo waxaad ogaataa midnimadan maanta Soomaalidu ay ka dhawaajinayso cidii horseedka u ahayd ee Somaliland maanta shalay iyo chance haysta inay ka mid noqdaan adduunyada ayay waxay choose gareeyeen in midnimadii Soomaaliyeed shantii gobol ee al-Sugulah heesu tiriiba waxay ahayd shantoo israacda waxaan lahayd iyadoo calan kaliya wanaagsanaan lahayd qoladii hor kacaysay maanta in iyagii midnimadii magaranaysa ay Soomaalidu ay tiraado qaybta kale Soomaaliya right now intii kale way tageen saddexdii kale labadii kale inay maanta yiraahdaan Somaliland baan midnimo ugu yeerayna horta inay isweydiiyaan qoladan waa qoladii shalay midnimada keentay maxay maanta uga maagan yihiin in la isweydiiyaa muhiim sidaad ula socoto dagaalkii sokeeye kadib Somaliland iyo Soomaaliya waxay labadii gobol ayuun bay dib taariikhdooda u celiyeen haddii la doonayo midnimo noocii shalay toole waa lagu hungoobay dibaa soo gaaray dadkii waday magaranaysa iyadoo caam ahaan dadka Soomaaliyeed dhibaato ay u horseeday civil war oo cidna maanta aanay ku caafimaad qabin ama ku waxyeelo wixii dhacay oo dhinac walba ay gaadhay laakiin dadkii shalay toole midnimadooda gowracay dawladnimadoodii Somaliland gowracay maanta iyaga waxay ahayd in bal Soomaalidu haday ka dhab tahay midnimada raadinayaan intay calankii Soomaalida qaadaan inay Hargeysa ka dajiyaan Iran waa tiyaad shalay noo keenteen naga hooy taasina soo dhinaca kale kama suurtoobaysan maayna ka suurtoobaysan marka waa gacmadal hadaba anigu aragtida aanu qabnaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo shanta gobol ee Soomaaliyeed meel kastoo degan yihiin wadda Soomaaliya including Somaliland aragtidaan qabnaa including Somaliland midnimadii hadii la waayay wada dhalashadii inaanay dhiman midnimadii taawil lagu ma kala tagin taawili lagu ma kala tagin waaya dhinaca kale Somaliland waxay leedahay waan ka go'aynaa Soomaaliya waxa jira dad reer Somaliland oo xilal ka haya Soomaaliya oo baarlamaan ku jira labada aqal golihii wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo hadda oo ay doorasho socoto ay ka mid yihiin dadka raba inay ka qayb qaataan baarlamaanka dib loo dooranayo cusub labada aqal oo waliba boqor buur madow oo si weyn looga yaqaano dhulka Somaliland iyo Soomaalidaba oo maanta xamar joogo Somaliland dadka xamar taga meesha ka taagneed waad ogeyd dhinacna inaad ka raadisaan aqoonsi oo tiraadaan Soomaaliya ka go'inaa dhinacna dawladda federaalka iyo nidaamkii dadka Soomaaliyeed aad la qaybsataan see isugu heleysaan xagee wax ka khaldayiin dadkii reer Somaliland ma isleedahay kuma midaysan arintaas صح قلت وسؤال آدي wanaagsan haddaynu laba u kala qaadno reer Somaliland sidaad ula socoto iyo waa deegaan iyo dad fara badan waa gobol dhan oo qaybtii weyn ee ugu importansan maanta waad og tahay reality-ga dhulka yaala haddaynu xaqiiqada ka fogaano Soomaalidu waxa dhib ka haystaa xaqiiqadii bay ka fogeen
haddii dib loo dhisayo dadnimadii iyo wadajirkii Soomaalida waxa qurux badan inaan xaqiiqada indhaha la iska qarin dadka Soomaaliya jooga ee xilalka ka doonaya waxa weeyaan dad iyagu choose garaystay imika Mareykan baynu joognaa inaga choose garaysanayna nimaadno war soo qaxnay waa soo carnaa inaga choose garaysay dalkeena iska joognaa inaga choose garaysay inaga badan baa joogto adduunka Soomaaliya may wali way ku caafimaad qabaan ku nabad qabaan waxa ogta qurba joog fara badan ay dib u noqdeen waxaynu ognahay magaaladan aynu joogno in Soomaali badan xilal u haya xilalka ay hayaan dee Soomaali uma hayaan haddaba inanka Soomaaliya jooga ama inanta joogta anagu waxaan u aragnaa sida ka Jamaal oo kale ee xilka Ilhaan oo kale xilka u haya magaaladan inay iyagu matalaan dadkii Somaliland original ka soo jeeday ee Soomaaliya degan inay matalayaan sidaan u aragnaa xaqiiqatan waa sidaas laakiin waa dadka Somaliland Soomaa dalashadooda Somaliland waaya markay wax qaadanayaan waxay ku qaataan magaca Somaliland dadka meesha joogana dad magac iyo maamuus kula weey dhulka Somaliland Soomaada garan marka ma isleedahay waxa jira aragti kala duwanaansho dadka reer Somaliland gudahooda hadda maanta boqor buur madow nin la yaqaan weey maanta wuxuu ku doodayaa in waliba ra'iisul wasaare uu ku haystaa taayadii baad raaci weedo tu kala raacday boqor buur madow wuxuu ka yimid Hargeysa wuxuu ka yimid Somaliland nin midnimada Soomaaliya aaminsan ma ahayn oo nin Somaliland ku nool deegaanka laakiin isii Soomaaliyada ismada Soomaaliyeed kamid ah oo ixtiraam kula ayuu ahaa laakiin maanta xamar ayuu wuxuu ka qaybinayaa hilba qaybsigii dawladeed markuu dhameeyo soo noqon mayo horta shakhsigu ama ha noqdo siyaasi ama oday dhaqameed ba ha noqday isaga u taala wuxuu choose garaysanayo dadka uu matalayo maanta waxaynu ognahay reerka uu matalayo ama deegaanka uu matalayo inaanay dirsan boqor buur madow aanay oran Muqdisho looga soo hadlo had takala hadaad eegto hilba qaybsiga la hilba qaybsanayo Soomaalidu dee 4.5 ba wax ku qaybsanayaan waa sax kuwan reer Hargeysa Soomaaliland ka yimina watiye kale 4.5 kaasay horta ku joogaan meesha ee kuma joogaan astaan reer iyo tan iyo deegaan ee waxay ku joogaan 4.5 ka ay ku joogaan marka taasi waxay hadii 4.5 ay ku joogaan iyagu cid ay label ku abtirsanayaan ay horta marka wax la qaadanaya ee wax Soomaaliland soo direen ama deegaan Soomaaliland laga soo leeyahay waxaad ogtahay in xildhibaan laga soo doortay Soomaaliland in golo deegaan laga soo doortay in ummadda leenka ku jira oo u foodaya daawanaysa cid maanta dadka soo dirsatay ma jirto waa dad rabitaankooda sida qolooyinka qurba joogba ay rabitaankooda u joogaan ay u joogaan xaqiiqatan laakiin yaa mid laga tagin hadii nimanka deegaanka ka yimid iyo dumarka deegaanka ka yimid ay wadaan inay leeyihiin anu si kale aan u aragnaayo ay leeyihiin sida Soomaaliland u dhisantay ay nabadda u gaadhay walaaladiina gacan ku siiya idinko cid label sita si ay Soomaalida kala ay u dhisanto anu sidaan u aragnaa walaalada Soomaaliya caawinayaanba waabay caawinayaanba way intaan ka soo tagno waxa jira in qaar kale oo Soomaalida ah laakiin hadda ka tirsan maamulka Soomaaliland ama deegaanada Soomaaliland ee British Somaliland isku dhaho oo iyaga laftigooda diidan goosadka oo hadda mudaharaadyadii ka dhacay Ingiriiska oo qolo reer Somaliland ay taageerayeen isu imaatinkii baarlamaanka qolo kalena ay ka soo horjeedaan wada arkayno wax la qarin kara aysan ahayn ma isleedahay Somaliland laftigeeda wali diyaar uma aha dadka guud ee Somaliland wada degan goosadka oo arrimahaas ayaa caqabad ku ah Somaliland in aqoon yeesho ma isleedahay waxa kamid gobolada Sool oo diidan iyagu goon isu taaga isla markaana aaminsan dawladda Soomaaliland inay xoog ku haysato dhinacan kale Boorame dadka ka soo jeeda gobolka Awdal iyagana sidoo kale waxay aaminsan yihiin in ay Somaliland aanay diyaar u ahayn xilligan oo beel kaliya oo la yiraahdo beesha dhexe oo waliba haddaan hoos u degno beesha reer Sheekh Saaq kaligood ay doonayaan Somalilandnimada marka arintaasi dadka concernka qaba maxaa rabtaan inaad tirahaan maxaa ku qancinaysaan dhulkii waa la ogyahay British Somaliland baa la wada dhahaa waa magacii gumaysiga wax inagu aynu keenna xataa maaha dhulkan Italian
Soomaaliya la dhihi jiray dhulkaana British Somaliland deegaan walba meeshuu ku yaalo Ingiriisku haysta ayaa magaci loo bixiyay laakiin dadku ma wada rabaan gooni goosadka maxaa ku qancinaysaan maxaa diidan dadkaas in lagu qanciyo in Somaliland ay si guud gooni isu taag u qaadato maadaama shalay ay wada imaadeen ayagoo wada socda waan ognahay waliba calanka Somaliland ninkii siday midnimada ka shaqeynayay ay Somaliland ergadii ku jiray ay ahaayeen dad ka soo jeeda gobolada Sool iyo Awdal horta xaqiiqatan ummad allun baa wada qanci kara cadaalad haday noqon lahay iyo waxsiin iyo wax soor baa haday noqon lahay waa mid xagga min Allaahida laakiin boqolkiiba boqol way jirtaa tabashooyin way jiraan waxaan la qarin baa jira annagu ahaan meesha Somaliland qaar badan oo Hargeysa reerka aad sheegayso ku abtirsada oo Hargeysa iyo Burciyo Berbera jooga ayaa midnimada doonaya qayb ma qofku inuu wax joos karay laakiin xaqiiqatan inta aan ku qanacsanayn ee wax dhaliilaysa la dhaliiltira waa mid meesha taala waa dhab in majority reerka beesha dhexe ay raadinay iyagu ka go'an tahay in boqolkiiba 80 in de Somaliland hana qaato in Ahmed Ismaaciil Samatir baa waxa laga hayay wuxuu yiri Somaliland the majority minority baa ayaa jira waxa fiican buu yiri qolooyinka majority-ga raadinaya wax inay iyaguna xaq sooraan dadka kale oo aanay voice-koodu cabirin xaq bay u leeyihiin soor iyo sanaag iyo cayn aniga ka soo jeeda oo gabiya ayaa ka soo jeeda haddaan ka soo jeedo dadka ila deegaankii inaanu isku aragti iyo wanaag iyo aan ku wada joogno aan ku kaga mid noqda waa muhiim laakiin midda meesha tala waxay tahay galbeedka daahir yaale waxa madaxweynaha ee Somaliland ugu muddada dheeraa yaa 9 sano waa ninkii keenay isbedelka dimuqraadiyadda waxaanu ka soo jeedaa awda way jiraan boqolaal nooca riyaal ah majority deegaanku inay ku ayidsan yihiin Somaliland ka mid yihiin oo madaxweyne ku xigeen xaq ma garanaysaa way jiraan laakiin Somaliland sidoo civil war ku dhacay Soomaaliya bacaamahan waxaad moodaa xaqiiqatan in de qolo waliba halkeedii ay ku ururayso qolo waliba halkeedii ay ku ururayso laakiin yaa la doonaya in kalsooni badan ay muujiyaan dadka qofka midida daabkeeda haya muhiimadu ayay tahay inuu dadkan wanaag iyo wax wada lahaasho laga arko waxay Somaliland maanta Soomaaliya ugu ordaysaa wax wada lahaashii baan arkayn shalay toole 1960 laga bilaabo halgan baa lagu soo jiray waad ogtay general baalki iyo markay in awliyo ay dagaalka sameeyeen waxay ka dagaalamayeen waa cadaalad darro in maanta Somaliland cadaalad darro lagu arkaana waa xaraan waaya booqashadii madaxweynaha Somaliland Ethiopia ku tagay mudane Muuse Biixi maxay ahayd ujeedadeedu dad badan baa xoogaa ku wareeray maalintii baarlamaanka Ingiriiska uu fariisanayay iyo booqashadii madaxweynuhu ku tagay Ethiopia oo hadda ida laftigeeda khalkhal siyaasadeed iyo mid military uu ka jiray oo dagaal sokeeye xataa uu ka qarxay oo markii dambe dawladdu ay ku adkaatay haddana dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia waxa ka dhaxay hadda xiriir aad u wanaagsan tan iyo intii uu yimi Abiy Ahmed iyo madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo Somaliland waa la soo dhaweeyay wax loo soo dhaweeyay sidii dawlad ka madax bannaan Soomaaliya oo kale arintaas lama filayn ujeedada ka dambaysa maxay ahayd maxaase ku soo aadiyay maalintii baarlamaanka Ingiriiska oo u fariisanayay inay ka wada hadlaan in aqoonsi loo helo Somaliland horta sida xaqiiqatan labadan midna Afrika ka socdo ololaynta waxaad moodaa daruurtii iyo duufaankii aqoonsiga Somaliland inuu mar kaliya wada maasheeyay Europe iyo Afrika aadna way u qurux badnayd kullay
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuu tagay oo ka qayb galay casuumad madaxweyne Aabi isagoo dee la soo waran bay wadaadkan dawladina wax badan waa u qarsooyin oo dee wax walba miiska lagu wada hadlay banaanka laakiin Soomaalidu wax badan bay iska dhaadhicisay saylac baa bixinaya in qaar kale waxay leeyihiin China ayuu ka Aabi kala hadlay waxyaabo badan laakiin xaqiiqada waxa reality ah warxun mina meel ma fariisabali hadday jirto inuu saylac saxahay sidee Soomaalidu iska dhaadhiciyeen meel walba ay ku hadlayaan oo aan ahayn de wax possible aqliga wax galay aan ahayn in madaxweynaha Muuse Biixi African Unionka sidii seed baa lagu lahaan jiray aha special seed for Somaliland seed kaasi sidii dib lagu soo celin lahaa oo Somaliland ay ka mid noqon lahayd African Unionka xubin sharafeedkii ay awalba lahaan jireen xilligii Riyaal horta ujeedada loo socday kaas waa xagga kale inta waynu arkaynaayo hogol baa ka hortay Europe labadiina isku soo hagaagaan wati siyaasadeed oo cusub waa doctor Mareykan oo tageen sanadkii iyo kongareesyadii ay tageen waxaad aragtaa in saddex qaaradood focuskeedu soo haysta daba Somaliland ujeedada la isku dilayaa maanta Somaliland loo buunbuuninaya waa maxay koow waa saddex arrimood in halkan berbera oo ah buqaadayda oo ah very strategic halka la ishu saaran tahay iyo sidii China looga xidhi lahaa maadaama Djibouti ay soo fadhiisatay Ethiopia Soomaaliyana ku leedahay inaan Somaliland iyo buqaadan inaan gacanta ku dhigin taas day issue meesha waya ugu dambeyn aqoonsiga Somaliland yuu ku xiray macaalamka ma dadka Soomaaliyeed horta nibaa la weydiiyay wax lagu leeyahay aqoon Somaliland yaa aqoonsan wuxuu yiri horta anaga Ilaahay baa na aqoonsan buu oo nagu galaday nabad iyo barwaaqo iyo magaranaysa system wanaagsan ruux Ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayo waxaan hadda ayiisanahay maalintii loo weyta baarlamaanka ninka wasiirka markuu lahaa Soomaaliya ku xiranta waxaan arkaynay gabar kamid ah qolada Congress-ka oo intiisa soo taagtay tirid dalkayga markii Pakistan uu ka go'ay adiga horseedka ahaa ma oran balgaleesh hal hadasho in Pakistan ma oran bay ku laakiin maanta waxaad noo sheegaysaa in ay Somaliland ay tahay Soomaaliya marka taasi double face baan u aragnaa Somaliland hadda mid meesha taala waxay tahay Somaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan waa muhiim لكن أقونسي كم حنا سومالي كم حنا أنا I believe هذا ما تجد war scenario واحد اللي يراد يضع ترى Somaliland عضها لقى قاعد لكن وزير كأرما أفريقيا وقابل سن إنجليز وكيري أنا نومتها الله قون اشتاق Somaliland وعند السماء والأطلال وهذا هذا Somali marka leedahay adigu Soomaaliya wax nooga xiran ma jiraan Soomaaliya aqoonsi maanta Somaliland kaga xiran ma jiro ma weyn oo muuqda ma jiro way aad iyo aad baad tahay waa soo gabagabeynaya barnaamijka waana kaaga mahad celinayaa inaad mar walba nagala qayb qaadato barnaamijyadeena saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkii aan maanta waraysi kaga qaadayay Ahmed Jaamac loo yaqaan Gabyaaye inta ayaan ku soo gabagabeynay arrimaha Somaliland wax badan ayaan ka wada hadli doonaa insha Allah dadka Soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan waa Soomaali saaxiibkay Gabyaaye isagu waa wakiilka jaliyada Somaliland ee waqooyiga America barnaamijkeena oo aniga caawil la socodsiinayay ayaa inta ku soo gabagabeynaya halka nagala socotaan waa Somali American Network saaxiibayaal dhinaca like share-ka dhinaca Facebook-ga iyo YouTube-ka si toos ayaad nogala socon kartaan taageeradiinu waa muhiim barnaamijyo kuwan la midana naga fisha sidaas iyo nabadgelyo